taageerayo biixireenkii dhawaan laga dhagax dhigay magaalada ayaa lagu qabtay isla magaalada Beledweyne waxaana ka qayb galay ururada bulshada rayidka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. warbixinta warkan waxaa inoo faahfaahinay wariyaheena Shariif Cabdi Maxamed. munaasabadan oo lagu mahad celinayay dadkii u soo gurmaday magaalada Beledweyne kadib markii ay la kulantay fatahaadii uu sameeyay wabiga Shabeelle dhexmara magaalada Beledweyne iyadoo holka ay munaasabadani ka dhacaysay soo buux dhaafiyeen ururada kala duwan ee ka howlgala gobolka Hiiraan iyo ganacsatada gobolka Hiiraan. munaasabadan ayaa waxa soo qaban qaabiyay ururka wacyigelinta gobolka Hiiraan iyo ururka waxbarashada gobolka Hiiraan oo loo yaqaano Hisda. Cabdinaasir Maxamed Cilmi ayaa ka warbixiyay sababta ay u qabteen munaasabadani. xafladan wax kala maahan waa laba qodob. labadaas qodob waxa waaye inaan u mahad celino dadkii sida hagar la'aanta ee noogu soo gurmaday shacabkii Beledweyne ee halkaan runtii dhibaatadii ka dhacdaan ognahay u soo gurmaday oo aan kala harka lahayn. tan labaad waxa waaye inaan taageerno na xoojino mashruucii biyo xireenka ah ee maalin hore laga dhagax dhigay magaalada Beledweyne taas oo ah mustaqbalka lagu badbaadi karo magaalada Beledweyne. runtii labadaas qodob waa munaasabada kuwa ay ka kooban tahay. munaasabada waxa soo qabanqaabiyay ururka wacyigelinta iyo sida hore lagu sheegay ururka waxbarashada. sidaan oo kale waxaan rabnaa inay qofka wax noo taray maanta xaaladii adkeed noogu soo gurmaday inaan u mahad celino. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay qofkiina dadku mahad celin anuu mahad celin. sidoo marka waxa waaye waa in qofku uu ogaadaa qofku wax u qabtay taas la aligeed waxaan kaloo aan maanta siino ma hayno waxaan kaloo maanta gudno ma hayno. waxaan rabnaa inaan niraa waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin waa mahadsantihiin. iyo ururada kala duwan ee maanta ka soo qayb galay munaasabadan ayaa gebi ahaanba sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin mashruuca dhawaan laga hirgeliyay magaalada Beledweyne kaasoo biyo xiran lagu sameynayo magaalada. waxa ayna sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha biyo xireenka Beledweyne. macallimiin ahaan iyo arday ahaan waxaan Abdullaahi gaadin oo istaago anigoo u hadlayo fahad waxbarashada iyo macallimiinta magaalada Beledweyne kun arday way ka badan haddii hal maalin maamulayaashii iyo macallimiinta ay kunkaas soo saxaan oo midkiiba uu qaado keliya hal qadiib oo ciida dabcan waxay noqotaa in laga maamuli karo haweenkii iyo ururada kala bulshada oo toban kun oo arday oo hal maalin ama laba maalin howlgeliya haweenka halkaa ururka dhalinyarada kale maadaama dhalinyarada waxaa laga rabaa in maalintaas faaraxdir oo soo xaadiriyo dhalinyaro iyo intaanoo dhalinyaro maanta waxay diyaar u yihiin inay maxay xoogooda ay maxay maadaan yani ha iskaashado qofkii dhaqaalaha inuu bixiyo dhaqaalihiisa aada umahadsantiin. waxaan taaganahay oo rabaa ka fiidiyo guddiga dhismaha biyaha amataada biyo xireenka doonaya maalinka waqti laanahay si khaas ayaan uga taaganahay. waxaan rajaynaa wax kastoo ugu gabadha baayana qaban doona xooggeena iyo maalka insha allah waxaan maalin walba waxaan raadinaynaa warmasiyo dadka eedda anaga leenahay dadka saarmeyn qaladka anaga iskale wallaahi aan bay sheegayna dhalinyarada magaalada joogta awoodda ay leedahay lacagta magaalada taala cadadkeeda lama tiri karo balkee magdin axmar waxay ku leedisaayo qofkii u leebisan yihiin waxa la cunaayo dadku keligood Soomaali jooga halkii Soomaali kale maxaa kale qofka sokola dad aan u hadalno barnaamijka waa bilowday siduu sheegay maxamed gudoomiyaha dalkiis dhibaatada dhow midna dhaxal iyo midda fog annaga wada gaari karna xaqadu wada gaari karna tijaabayo annaga aan galnay wadda lacag u ururinay hal maalin aan $130,000 ugu yabahay hotelkaas guudi dadkii yabahay waa joogaan lacagtoodii ilaahay wuxuu qadaray in waddadii dariiq hesho qayladii la qaylina ilaahay dariiq u sahro ugu dhiso oo mashaariic rag u dalbanaan dad macaash raadina ugu imaanayshada macaash raadinayn laakiin waxaa macaashina waddadii loo dhisaayo lacagtii waxaan ku wareejinay fatahaadka ku wareejinay fatahaadka ku wareejinay sanado ka yara waxaa lagu dhisay malaayiin badan lagu bixiyay masaajidda magaalada ku yaala. marka waxaan rabnaa arrinka ah inaan biyaha maarayno Beledweyne aan ka maarayno war managa kuma tahay okay fiicantii walaastii la buuxiyaa saakibad
maanta meeshan waxaan u fadhinaa inaan u mahadcelino dadkii noo soo gurmaday annaga haddaan nahay reer hiiraan ama reer beledweyne cid allaale ciddii ama xoog nagu kaalmaysay ama maskax nagu kaalmaysay ama maal nagu kaalmaysay horta jize ilaahay ha ka sii maalinta yowmal qiyaamo ayaga waxay hormarsadeen ay leeyihiin midda kale waxaan u mahadcelinaynaa madaxda hormuud iyo dahabshiin oo si joogtaa u taagneed 2 bilood oo biyaha iyo dhibaatada lagu jiray ayagoo heli kara inay naga seexdaan haddana waxayna tusaayeen inay naga seexan karin habeen iyo maalin ay noo taagnaayeen ayagana waxaan leenahay mahad ha idinka gaarto waxaa soo qabanqaabiyey ururka waxbarashada iyo ururka wacyigelinta oo ayagana dadka maanta gobolka uu ku tiirsan yahay ayagana waxaan leenahay ilaahay jizaha idinka siiyo wassalaamu calaykum waraxmatullahi haddii walaal uu ku saacido waa in loo duceeyo waa in loo mahad celiyo haddii aan reer beledweyne nahay waxaan naqiinay beesha caalamka hay'adaha caalamiga ah hanoo soo gurmadaano ayaan naqiinay waxaan nala baray in walaalaha Soomaaliyeed ay isku gurma karaan waxaan rabnaa marka inaan ka sii baranno in reer hiiraan ama reer beledweyne ay iskaalmaysan karaan wax qabsan karaan biyaha iska wareeji karaan haddii masiibo dhacdo ay iskaalmay karaan garbaha is qabsan karaan wax isku tari karaan ayaan istusi karnaa Soomaalidu waxay tiraahdaa dadku waa labo dadku waa dad dhaq iyo doon dhaq dadku waa qof dadka hogaamiso oo dadka wado oo dadka macnaha fikirkooda iyo aragtida wanaagsan ku wado qaranka ka aruuriso wanaaga u horseedo oo dadka hogaamiso iyo qof yaani aan dadka hogaami karin laakiin samayn karto dhaqaalo ama shaqada gaarka ay u leedahay marka waxaan leeyahay dadka meeshan isugu yimid waa dadkii dad dhaqa ahaa bulshada qaybaheeda kala duwan magac kasta ay leedahay oo reer hiiraan ah ama reer beledweyne ah marka waxaan leenahay hadii Ilaahay yiraahdo walaalihii maarta noo soo gurmaday oo dhibaatooyinkii ka damqaday dal iyo dibad ee Soomaaliyeed waxaan leenahay waa u duceynaynaa wixii ay baxsadeen iyo wixii ay yaani soo ururiyeen ama soo dhiibeen wax ka qeyr badan Allah ugu bedelo dadkii lagu soo hagaajiyay oo sida wanaagsan oo quruxda badan u qaybiyay naayagana waxaan leenahay qeyr Allah ka siiyo waxaan leenahay walaalaha Soomaaliland dadka ay ugu horeeyaan iyo dadka kale oo aan wax ka sugayn beledweyne hadii maalin kasto la qaybiyo $1 milyan waxaan leenahay wax macna kuma fadhiso dadka hore u noolaayeen dadka hore wax u haysteen in wax la dhiibo in la dhiibo in raashin la dhiibo wax macna kuma fadhiso marka waxaan leenahay Ilaahay idinkiis annaga hadii aan reer beledweyne nahay ama aan reer hiiraan nahay jeebkeena aan furno xooggeena aan furno aqligeena iyo maskaxdeena aan furno aan wax qabsanno biyaha aan iska leexino in biyo la leexiyaan wax fudud maaha waa dareemayna wax fudud maaha in biyo beledweyne biyo laga leexiyo wax fudud maaha meeshii lagu leexi lahaa qarashkii lagu leexi lahaa يعني aqoontii lagu leexi lahaa wax badan ay u baahan tahay laakiin qoftu markii ay hiigsi leedahay wixii ay hiigsato hadii dadaal lagu daro waan gaaraynaa isku haleynta hay'adaha waxaan ka leeyahay markii ay fatahaada dhacday hay'adaha waxay dhiibeen saabuun baldi beeshin katiifad xafaayad iyo wax la mid wixii ugu fiicnaa dhiibeen waxay ahayd biyo dadka Soomaaliyeed oo adduunka daafiisa ku noolna waxay dhiibeen raashin iyo lacag iyo daawo waa dareemi kartiin marka biyana waa dhiibeen waa nolosha inta ka kooban tahay laakiin xafaayad waxaan maleynaa xafaayad 2 sano ka hor beledweyne 10 sano ka hor beledweyne ma aqoonbo xafaayadna xaba nooma tarto beeshina xaba nooma taro marka waxaan leenahay gacanta aan isqabsano aan wax isku falno waxana la siiyo nolosha gurmadana biibaxdii hadda la soo dhaafaa noogu ekaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh